bulshada Soomaaliyeed lagu xiranaay laga soo dalbadeen ay yiraahdeen mar un digriyow dhowr su'aaladood jiira noo weydii si aanu iskula wada digrino iskula wada hadlayno aad iyo aad baan nooga mahadcelinayaa wanaaga iyo sharafta iyo sidoo waqtigiisa qaaliga noo siiyay digriyow cabdi soo dhawow waa maasantay walaalkay cabdi xaafid waa dhawahay adiga taageerayaashaada iyo asxaabta kugu xiran iyo bulshada weyn ee Soomaaliyeed meel walba dunida dacalada ka jooga iyo asxaabta khaaska ah aba taageerayaasha digriyow ay raahday sharafaa leedihiin waa dhawahay waa gartay anagana sharaf bay noo tahay saaxiib la kulankaaga waana kaaga mahadcelinayaa mar labaad waxaad ku dhalatay magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafadda Calaley aad iyo aad waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo kastaada iyo waliba xaafadda Calaley waa gartay waxaa jira dadku in badan isweydiiyaan magacaagan digriyow waa magac weyn oo diin iyo sharaf iyo alla xus salka ku haya sidee magacaan hooyo iyo waalidku ay kuugu bixiyeen baan isleedahay wax sheeka ama jirta waalidku ay kaaga sheekeeyeen arrimaha ku saabsan cabdi xaafid horta waa mahadsantahay waa su'aal muhiim ah digriyow waa magac aad iyo aad u qiimo badan shakhsiga lagu yaro ariga ahna waxa aaminsanay inay baaratay sharaftiisa karaamadiisa aan hubanahay magac lii xulay ama magacyada marka carruurta marka dhashay cabdi xaafid oo ogtahay waa dadka la weydiiyay waxa la yiraahdaa war haddii wiil baa yimid ama gabar baa timid magacyo ula baxnaa magaca digriyow wuxuu ugu imaaday magac qise ah oo taariikh ah sidaa ogsoon tahay cabdi xaafid haddaan wax yar kuu dalbaro taariikhda yaraantayda uurka hooyo anoo ku jiro waa maamada hooyadii waxaa maray baabuur oo shil baabuur ayay gashay anoo markaas uurka maamada ku jiro cunuga caloosha lagu siiday markaas anigu ahaa dhaawacyaa uurka dhexda hooyo igu soo gaaray sida maaragtay feeraha oo kale iyo madaxa oo jug culus baa igu soo gaartay lisma lahayn macnaheedu cunugan ayaa noolaan doono balse ilaahay dilaa dhibta alxamdulilah cabdi xaafid markaan isbitaalka ku dhalinaya xaalad degdeg ay ahayd markaa dhashayna waxaa dhashay anigoo ku haya allah jabriil magaca digriyowna halka ayada ayuu iga soo raacay markii hooyo ku dhashay ma waxaad leedahay erayadii u horeysay ilmuhu inta badan xilligaa ma hadlaan sidaanu ognahay mararka mucjisada ma ahana sida ciiso yaraay oo kale calayhi salaam ma ahana ma ogin dad fara badan oo xilligaas oo kale hadlay ma markii aad dhalatay oo dibadaba timid ayay ahayd mise yaraantaadiiba erayada dhiig cabdi xaafid oo aniga markaa dhalinaysa ku sheegay xaalad maadaama shil maamada ay soo gashay oo baabuur soo jiiray anigana gudaha ku dhaawacnaa waxaa ku dhashay xaalad degdeg ah ama xaalad kooma ah sida maarta cunuga markuu dhasho kale cunuga caafimaad qabo biclihi markuu dibadii baado kale sararta la geeyay laakiin aniga markaan dhalinaya biclihi waxaa ahaa qof burbursan oo uur hooyo kusoo burburay oo dhaawac baraanka markaa dhaawaca ku ka soo gaaray marka iyo madax ayuu iga soo gaaray cabdi xaafidow sida markaas oo aan taariikhda ku haya ama markaas goobjoogayaal badan ama hooyadii macaan oo inta ayada nafteeda ka salaamay hooyo ilaahay uunka kulkiisa kugu xafido hooyo macaan waxaa dhashay anigoo ku hayo allah jabriil marka dabcan waa mucjisaadka ilaahay bay ka mid tahay cabdi xaafid oo cid xerowna waana anaga rasuul wal jamaa ummadda dhan baa rasuul wal jamaa laakiin si qaas la family kala ma aragto waa cid ma aragtay alxamdulilah ilaahay ahludiina marka digriyow halkaas maadaama adoo ilaahay magaciisa xusaya aad dhalatay ayaa waxa dhacday in magacii halkaas aad magac xaggaas iga raacay digriyow isla markii wadaadada maaragtay isbitaalka waa taqaanaa Soomaaliya arigoo xanuunsan markaa dhashay qaybta kooban marka la sii geliyay inta badan bulshadii markaas goobjoog ahayd oo markaas baabada la joogtay xitaa rag badan oo familkii odayaalba markaas ku jiro yiri ma aragtay culug noolaan maaye waxyaalo mucjisaadka baabada iga sheekaysa waxa ka jira markaa hadda weylaaday ragga adeerada iyo meeshii yimid markaas nin ka mid ah inuu yiri kare culug ku noqon maaye waa saqiirey aaminay ka samar
baabada hooyadii aabale la yiraahdaa ilaahay wuxuu xugmay ninka asaga ahaa asoo nin weyn inaa maaragtay dunida ku saaciday oo abaal u galay anoo nin weyn ah marka ninkaas wuxuu islahaa hooyo wuxuu ku yiri waa ninkan waa tagayaa aad iyo aad hooyo kani wuxuu yiri macali kani kaas qiir meesha maaragtay hadii macali xaaladda ku dhashay iyo macali ilmo yar oo markaas joogta ka sheekeynaya oo baawur uurku isku soo jeeray macali asagana Soomaalida inta badan Cabdi Xaafid hadda ku daro qiyaastana maaragtay la buwana kuna oo maaragtay isla markii wax ka qiyaastana waa gartay hooyo ma kaaga sheekaysay baabuurku nooca uu ahaa waxaan jeclahay Cabdi Xaafid haddaanan qaldin inuu ahaa Land Rover oo Soomaalida waxay u yaqaaneen magac kale Soomaalida u yaqaaneen baabuurta yararka Land Rover-ka waa gartay military isticmaalkiisa waa gartay haddii aad sidaas aad adduunka ugu soo biirtay dabcan hooyo iyo aabbo iyo waalid iyo ehel iyo qaraabo baa ku soo barbaarshay waxaa dhacday inaad ka qaxdeen magaaladii Kismaayo oo aad u qaxdeen dalka Kenya aad iyo aad Cabdi Xaafid oo inta taas gal ka dhaxgale inta la Kismaayo ka soo bixin erideeda Kismaayo waxa ka mid ah waxyaalaha kale mucjisada ay u qabsaday inta badan waxa uu leeyahay bulshada caawina daawo doonta ama maanta iraahda barnaamijku ku soo gaaro waxay isdhihi doonaan dikriyo wuxuu sheegay macali inta badan waa iska ku dardar waa taariikh sax ah oo jirta waxa dhacday Cabdi Xaafid oo Kismaayo gurigeena wuxuu lahaa ceel marka ceelkii waxa dhacday nin adeerkay ah oo markaas ceelka shubay inuu yiri adeer aro meesha maraya oo cunugeena adeer kaalay wadaantan iqow wadaantu waa taqaana marka u yartahay waa 20 kiilo ceelka waa way culustay ani 20 kiilo 3 kiilo weey adeer iqow asaga markaas ba aqaana si wax ka hayeen adeer iqow yiri asaga marka macawustaas wuxuu fiirinay wadaanta xarigeeda markaas uu qabtay ceelka ku dhaxlay Cabdi Xaafid oo halkaas qasa aro 3 jir ah baa ceelka ku dhaxdhacay waliba ceelka markaa ku dhacay ceelku waa dhuubay darbigiisu aragtay waliba dhag iyo qasaare kale iyo jug kale iga soo gaartay gudaha ku dhaxdhacay Cabdi Xaafid ilaahay waa ilabcay ilaahay waa barkiyay isla markii maartay adiga anoo biyo cabay oo laakiin markaas ku dhow suxlimaan baa reerkii markii qayliyeen uu ninkii odayga hada qayliyay asaga ceelka isku soo dhaxlay isla asaga adeerkii naftigiisa sidana haddana maartay halkaas kaga soo badbaaday ceelkaas waa taariikhda Kismaayo markaa dib u yar laaban waa gartay mucjisaad ku dhalatay ceel baad ku dhacday adigoo 3 jir ah ilaahay baa ku badbaashay ilaahay baa ku wato ku waartiysanaya waa gartay maxaad kaliya ka gaarto waa gartay waxaad timaadeen muddo yar kadib dalka Kenya timid halkaasood abeeso weyn isku dagaasheen waxay ka mid tahay taariikhda waxyaalaha mucjisaadka ka mid tahay Cabdi Xaafid markaa soo qaxray Kismaayo markii dadka laga soo qaxay Soomaaliya gabi ahaan marka la soo qaxay anoo iska ilmo yar ah waxaa imaanay maaragtay meel la yiraahdo Hawaas Weyne oo wajeer ka sokaysa dabcan reekiin way yaqaan Soomaaliya inta badan dadka soo qaxay way yaqaan Hawaas Weyne waa meel carrada waxay leedahay xaanida sida carrada maaragtay meelahan waxa u malay TV-da ka arkay sida carrada maaragtay Dubai iyo Liibiya Sahara carradaas faraha badan leedahay abeesada inta badan laga booyo carradaas xaanida ah oo faraha badan waxa dhacday maalmaha ka mid ah maamada suuq u socotay Cabdi Xaafid carruurta waa taqaan markii waalidkooda baraha ku baxayaan waxay jecel yihiin inay raacaan maamada kadib hooyo ku raacaya waliba waxaan maaragtay intii la bisris xitaa waqti ma siinin waaye hooyo way raacaysaa suuq bay ugu tireen waxa jiray aqal Soomaaliga maadaama aniga markaas qaxooti helo dad macnaheedu banaanka magaalada Hawaas Weyne banaankeeda la diyay dadka qaxooti markaa waa taqaan markaa guriyihii dhisay aqal Soomaaliya aqal hooriga dadka inta badan u yaqaan waxa dhacday Cabdi Xaafid barkinta aroosan gacanta ugu jiro oo saa barkinta ku barkanahay gacanta barkinta iga hoosaysa ayaa waxa dhacday abeeso weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga badbaadiyay abeeso weyn bay qalitay markaas dhag halkaas oo bidixda halkaas calaa 10 Cabdi Xaafid iga qalitay
khaliyadeedu way kulleed marka abeesada waxay leedahay inta badan micib ay leedahay dadkii yaqaan micida haddii kugu jabaysa abeesadana waa halis waliba dadka inta badan waxay dhahaan da'day kugu qalintay da'deeda kala daa gaarto waa lala curiyaa bay dhahaan alxamdulillah cabdixaafid markii inta iga qalintay qaniyada kuleelkeedii abeesadii markaas caruur baaha waa iska qabtay qabashada gacanta midiga iska qabtay dana suulka iyo doobartay gacanta bidixda iga qalintay markaa iska qabtay tirmidigta haddana iga qalintay oo maaragtay suulka abeesada iga qalintay khayladeeda waa gartay marka kaliya ayaa joogo reerka joogo aabba Allah ya raxman xariis jalaalaha ka waraabsiye aduqa aabba markaas jooga maamadii oo markaas labisaraysa joogtay walaaladii dhabaal waa la wada joogay khayladeeda lagu soo kala carray abeesada intiina micida dhinacan gacanta bidixda iga jibin midigta iskaga qabtay midigta markii iga qariitayna aniga abeesada dagaal halkaas lagu dhaxbaray isla positionkeeda ku laabatay booskeeda ku laabatay waxa dhacday cabdixaafidow naxariis jalaalaha ka raabiya aabe duqaabe Allah ya raxma ba markii qeylideedu baqlay waxa la yiri wal maxaa dhacay wiilkii maxaa qariiliyo weel raadiyo marka hangarlay midiya wiil la dhashay asaga wiil waxa la yiri Idris la yiraahdo asaga leeyahay ku joogo inta ka salaam walaalkii waxa la yiri bal isla baar wiilkii maxaa qariiliyo maadaama carrada way u agtay abeesada markaas la yiri maxaa qariiliyo inta marka ariga aqeylaayo cabaadayo baraanka joogo baabada iyo baartay li baxraanayo ayay kale xukuum qeeyay baadi goob si fiican uma xasuusto cabdixaafid inuu aabaha iyo walaalkii Idris inuu ahaa mid kamid ah ayaa waxa qariinay markaas hangara la qariiday hangara arkay markaas xilli lix hangara la qariiday mas hadii dib loo sii baaro bas abeesada isla exact meeshii barkita ka bay dhaqaaqay laakiin dagaal ay u diyaar garowso hadii isla laaftay way xirtay qof walba markaas aaday inay maarta la dagaalanto halkaasna waxaa kaga badbaaday qaniye abeeso alxamdulillah abeesadii barta ayada lagu dilay isbitaal la cararay labada gees gacmahana waa laga fiiriyay wax biciil ma jirin waxaa kaloo xasuustaa markaas inay sunteedii laga siiyay xabasooday iyo daawo dhir Soomaaliya oo aan ka matagay marka halkaas aad kaga badbaadiyay sunteedii Ilaahay kaaga badbaadisay mar kale oo saddexaad alxamdulillah waa gartay jigriyow ninkaas sida markuu dhashay shilkaa ka badbaaday laga quustay laakiin qadarta Ilaahay raxmadiisa ku badbaaday ceelka ku dhacay abeesadaas ka badbaaday labada gacmood ka qaniintay weynaatay oo waaye joogtay oo waayaha cusub aad iyo aad waa soo baxday markaas hadee markaa ku sheegay oo intaas horta shilalkaas u dhaceen saddex jir ahaa oo maaragtay oo markaa ka soo qaxlay okay markaa Kenya soo galay hadee xaggaas maaragtay dugsiga iyo garanaysa reer Islaam carruurtooda dugsiga iyo iskuulka iyo ka dawriga wax barasho magaalo la yiraahdo Ceelwaq oo markaas xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ceel qaal meel yiraahdo jirtay laakiin Ceelwaq magaalo la yiraahdo waa soo dignay بلد حاو أو بارتي أنت سفع وسو أقلي يستلم من اللي راه بلد حاو أو هوي بقرطوية إذا بارتي وكسر نولا كدب وسوق بيوحاني مد نيروبي بركة تاريخ ذي ينولش يتو بدنا وحيت هلا نيروبي مركز رجسة قحر كي بعشات كي راتي ذوك صبرا واقرتي نيروبي بعد جوكتا ريركي هالك سود دقي إذا كان نيروبي دقي بعد كم نقطتين فنان هوري وماذا نحين ريركوا رير أهل الجينة ساد إيشاكتي مجاعس قروح البضانة ومشاهد عن بارسون بالله هاي maxaa kugu dhaliyay inaad fankii suugaanta ku biirto Cabdixaafid oo su'aal muhiim ah inta badan dadku waxay dhalayeen xitaa reerka baabooda Allah xafido waxay tiraahdo liyo baaratay ba fakar baaratay bixaytay meel laga soo galo inta kii baaday Cabdixaafid horta ciyaalnimada qof walba wuxuu leeyahay wax la yiraahdo farxad gooni ah ama wuxuu ka helo oo qofku markuu ciyaal yahay aniga waxa ahaa reer Bologna ahaa reer Nairobi asxaabteeda inta badan waqtigii inta badan marka wax barasho marka laga soo tago Bologna aad u dheeli jiray nin dhalinyaro oo forjo badan oo kafta badan waa ahaa marka gool dhaliyo kale waxa jeclaa marka celebration sameeyay ama dabaaldegay ina hees ku sameeyo oo bacali markaas kooxda xitaa baaratay eligible oo baaratay raabki oo gees ka galo inta ka dhacdo sifo kooxda kale igu soo jeeday xitaa markaas aan baaratay
aan shucuurtooda u kicino marka nin aad u forjo badan waa ahaa fankii xagga sportska mar walba dabaaldegi aan markaa aan gool dhaliyo kale kaga heesi jiray waxay noqotay cabdixaafidow Nairobi sidoo kale markii waxaa u soo dhawaanaya qaybta bahda fanka asxaabtay inta badan waxay hayeen abwaaniin fanaaniin Nairobi meel leeyahay 11 Street Shego Ban studio ko jiray naftigiisa Shego Ban ana cunugeer ah markaas waxa jecel jiray oo 13 jir xitaa ilaa ka soo shaqeeyay oo waxyaalaha baartay israahda baartay oo yaraantaadii hadaa xitaa baartay shaqadaas iyo ragnimadaas ku jirtay waxay ahayd saaxiibkii asayr inta ka salaamay Axbashiilo oo hadda kaleeda ku nool studio-ga Shego Ban oo soo war marka studio-ga Cabdixaafidow si oo ogtahay marka studio aad joogtid dadkii waa inay wax ka gadid waayii hore ma jirin wax la yiraahdo flash disk ma jirin duuga casriga ma jirin oo bacliyo taleefanadaan iyo mobilada waxa ma jirin oo markaas waxa jiray si la wada ogsoon yahay Siemens iyo Nokia iyo Sony Ericsson iyo jiray raaliyaha alaabtii atirada lahayd studio-ga marka waxa wax lagu duubi jiray cajalad cajalada marka customka inta u badan ama dadka macbilka loo imaan jiray waxay ahaayeen dadkaas mooyaale u safro oo baartay gobolada aado oo baartay Gaarisa iyo meelahaas aado marka waa ina wixii ka dhaadhicisid waa ina marka sometimes waxa ku imaanaya dad dooq leh oo ku dhahay albumka fanaan hebel aan rabnaa noo duub waa u duubaysaa ama waa ina sometimes adiga qofkii haduu hal cajalad gadana waa ina af Soomaali fara badan iyo heeso fara badan oo u dhex jirto tirada kana soo baxday kana saanayo adiga luqada bacbashirka waa taqaan studio qofka ku fadhiyo faham marka in yar wixii uu soo dhawaaday oo baartay studio-gii wixii soo dhaxbaray sportska kuwa sida kaga sheekay kadibna waxaan isqabanay kooxda waayaha cusub oo markaas Nairobi aan isku qabanay gudoomiyahooda واسقبتي waxa ka wada aad asqar waxa ka wada bacli waa isku baranay oo baclihi hawsha ayadeeda isku soo galay Cabdixaafid waayaha cusub marka bilaabayay waxa ahaa ku darsaaro studio jooga cameraman waa TV-ga ka shaqeyn jirtay ma xasuusto ilaa hadda joogto ka shaqeynaysa University TV Engineer Axmed Abdul Maqlay Engineer Axmed naftiisa duu taga maqlayo waxa uu ahaa cameraman-kooda u horeeyay Nairobi joogay xitaa barnaamijyo u soo duubi jiray anoo haddana qaybta kala fanka kaga jira nin iska joker oo noocyo badan dhinac kasta waa u dheeli jiray Cabdixaafidow waliba kugu dare film la yiraahdo Cali Coorle oo 2006 la duubay xitaa anoo haddana jilayaasha ka mid ah haddana waxa ka mid ahaa cameraman haddana fanaanna ka sii ahaa oo isku dhaxwooday marka sheekhu kulli marka waxsasay kala Cabdixaafidow ka dhaxgalay واي عصبات كبير على كل حال wada xusub markaas maadaama aan soo qaatay taariikhaha waxa ku jira oo kale saaxiibkay walaalkay haddana siyaasi Abdul Ibrahim aada garyare oo markaas asagana ahaa wariye oo jooga Nairobi University TV xafiiska u horeeyay Abdul Ibrahim garyare markaas meesha ka asaasay cameraman kale anigu ahaa labada nin oo markaas hadii University waayii hore hadii waxa TV-da aad loo daawan jiray markaas saaxiibka Abdul inta ka salaamaya marka digriyo waa iska baarad wada fahmay agartay digriyo waa joker oo sheegtay waa hagaag waa gartay kooxdii baa ku biirtay heestaadii koowaad ee kooxda wada qaadeen maxaad ka xasuustaa Cabdixaafidow kooxda marka ku biiray kooxda waxay ahayd markaas kooxda kaliya is dhihi karo markaas geeyiga ama qaaradda Afrika oo ka dhisan tahay iyo ummadda Soomaaliyeed bindho u ahayd kooxda waayaha cusub markaas koox dhalinyaro oo markaas soo asaasatay kooxda waxa iga horeeyay Hadar Cabdiraxmaan dalmaryare oo inta badan dadka mu moodaan baartay waayaha cusub hayeen raayada ka xuswaana salaamaya waxa isku xillihan Falis lixli waa laga horeeyay lixli asaasayaasha ku jireen yeesheere oo gudoomiye kooxda ahaa aniga Falis la dadka dabaahan qof buu gacantu heetay soo qabanayay waliba kooxda marka ku soo biiray Cabdixaafidow oo kugu daray
marka waayaha cusub kusoo biiray uguma soo biirin fanaannimo uguma soo biirin oo bacdihii anoo talent fakale laakiin kaalin markaas baraaneed oo baahi fara badan oo jirtay oo ah qaybta kaamirada nafteeda heesaha u horeeyay waayaha cusubna anaa u duubay kooxda waayaha cusub kad farsamadeydu waliba falkii ugu jirto hadda laakiin baahida u weyn markaas kooxda ay qabtay waxay waxa soo kaamirad yar waa ku duubi jiray lekelera Cabdi Xaafid oo beesha arka iskala soo bixi jirnay maartay waxaan ahayn markaas dhalinyaradii u horeysay video ama muuqaal soo saaro oo wali wacyi gelin u badan markaas markii kooxdii studio-gii oo xagga dhaqaalihii iyo xogaa kooxdii hadii u ekaatay koox markaas lagu heedo ku taagan ilaa marka hore iskaashatana ma kafto Cabdi Kaafiyo lekelera Cabdi Xaafid sax waa hadday kuftana ma kici weyn iskaashatay oo dhinac walba baahi walba oo imaado iska dheelitiri kartaa oo macallin kooxda la xabiistayaasheeda wadato abwaanadeeda wadato oo kaameramanyaashooda wadato oo haddana fanaaniin isku ah qaybtii markii qaybta dhaqaalihii mid oo kaamera wax siiyay bay noqotay in maarta digri oo kaalintiisa raawka iyo heesaha caadiga iyo wacyigelinta ka qayb qaatay kooxda waayaha cusub maxaa raabku dooratay Cabdi Xaafid oo soo ku sheegay yaraantii markaa dheeli jiray kubadda celebration ama markaa dabaaldegay waxa ku dabaaldegi jiray raab kale waa aad u xiiseeyaa mid kale Cabdi Xaafid waxa rabaa inaa fursad qaali ah ka faa'iideysto oo mar ah ka dhawaajiso oo ahayd raabka inta badan sida hadda adiga ka maqlay markaa barnaamijka furaysa waxa tiri raabka dhaqan Soomaali ma ahan heesaha kamid ma ahan Cabdi Xaafid oo hadda waxay ka saxo walaalkaygiiyo horta kaliya ma ahan bulsho badan oo Soomaaliyeed ayaa arrinka ayada ah qabto Soomaalidu ximado raabka inuu yahay wax baartay noogu yimid galbeedka anaga raab markaa maqalno suuga ka dhex gala degree raab markaa anaga maqalno waxa lagu soo dhacaya Snoop Dogg iyo 50 Cent iyo Tupac Shakur qoliyahaas lagu soo dhacay Xaafid hadda ka dhex galo horta meesha saar fursadda yarta waxa rabaa inuu u faa'iideysto raab hadii noqoto raabka aniga degree inta qubarada fanka Soomaaliyeed aad u taqaana ama qof walba oo dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed yaqaan waxay aaminsan yihiin inuu raabka uu yahay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed kaalinta kooda kaga jira xitaa heesaha caadiga waxa kaga horeeya raabka waxa kaliya oo dhaqan u leeyahay waa raabka arrinka asaga waxa u leeyahay waxa waaye Cabdi Xaafid waxa kale waa fanaaniinta inta badan oo soo gala taariikhdooda ma hayaan laakiin aniga degree waa la darsay waana sii baaray raabka wuxuu dhaqan Soomaaliyeed ku noqdaa waxay tahay hadda ka hor doodo fara badan nooca ka qayb galay Soomaalida waxay yiraahdaan raabka horta lagu sheegaysiisa waa ereyo la tembeeyay oo qofka Ilaahay quality sida dhaaltada kale marka goobka tiriska kale oo raabka yahay kuun lamina tabaaraka cilibada Cabdi Xaafid waa leeli jiray bal adiga hadda kuun lamina tabaaraka bal muusigiisa waa raab waxa ku soo hartay saarka oo baarta gobolada Soomaaliyeed sida gadoo kale laga dheelo saarka marka tan kan dalena tirin baanta kan tire hadii kala waxa laha waa rab dadisa marka Cabdi Xaafid gabayga laftigiisa raabka geesu ka soo galaya gabayga xitaa qaabku u dhacay marka fiirsid gabayga qofku markuu gabayga qaabku u dhacay marka fiirsid waa raab marka Soomaalida iyo dhalinyarada Soomaalida ama fanaaniinta ha ogaadeen inta taqaanana way taqaaneen inta aan aqoonina ha ku dagaalameen dhaqankooda raabka yaala la xaglin waa gartay halkaas su'aal baa ka imaanaysa jecelahay inay daawadayaashuna ay ku weydiin lahayn haday kula fadhin lahayn kuwa kale oo ka badanba anagoon ku fogaanaynin marka la yiraahdo dadka Soomaalida hadda waayihii dambe heesayay inta nool iyo inta dhibatayba حسن هذا سمنتر undisputed champion وي أحمد علي عقال عبد القادر جوبا dadkaas oo kale waxa la oran karaa ayagoo raab qaadaya maanan arkinin haduu raabku dhaqanka Soomaaliyeed iyo suugaanta uu kamid yahay maxay kuwa iyo ku horeeyay kuwa kala qaadi halka waxa dhahan waxa dhigi jiray halka qosol baa ku jira Cabdi Xaafid horta raabka wax la iska doorto ma raabka wax talent ah raabku waa qofku wuxuu وحسن سبتر وفلان لجنة عبد القادر جوبا سيدو كله أحمد علي عقال سيدو كله لكن raabku igu soo ordo naftigooda kuma soo ordi karaan hadii heesaha caadiga okay ku yiraahdo ayuu waliba legend ah oo ku ixtiraamaya fankooda iyo waqtigooda iyo waayahooda agartay
فنان عادي هذا دو صوب راب قرينا ما أركره عبد الحافظ رابكو هسه عادي يا رابك دي بدن رابكو وأريا أتمبينيس وأتمبر أو كفرسيت هس لو هس waxaa kala hagaya waliba Soomaalida heesooda waxaa kala haga jawaab maxaan tararariran yabi ka dhaacayo tirin cudurraamnaarida taran bacdi jawaab heesta laakiin raabkan jawaab ma laha waa tempo wixii baa teebenaysa markuu waa ka adeegay okay hadii dadkii hore ay ugu xujeysay Cabdi Xaafido ku soo qaatay abwaan ilkajiir oo jooga Muqdisho Allah xafidita ka salaam waya heesiisi u horeysay waxay ahayd raab maraa wareysigiisa daawaday raabka rag tirada ka mid yahay marka daawatidoo kale riwaayadii heesdoota jir iyo tumasho waxa ku jirta alafta geeli dhaqaaji garbaha alafta geeli dhaqaaji garbaha soo dhawow ila dheel waa raab Cabdi Xaafido raabku wayga hore laftigeeda la qaadi jiray soo ku sheegay heesaha caadiga aad Cabdi Xaafido laftigooda Soomaalida u baahan su'aal iska weydiiyo waxa tahay heesaha caadiga Soomaalida horta tay kaga imaadeen aniga digriyo ahaan waxa aaminsan heesaha caadiga inay noo imaadeen Asia waliba Soomaalida inta badan Suudaan way dhahaan India xitaa ka hadda heesaha suuciska kale marka fiirso wala xal Hindiyad Cabdi Xaafido nafteeda meesha ku darso waa gartay waxaan rabaa raabka inaan maxaa lahaa hal mar soo koobno adigoo soo koobaya waxa dadweynaha Soomaalida la daawanaya ee su'aalaha noo soo qoreen waxa kamid ah digriyo Cabdi iyo ilka casaqays labadaas nin aad bay u raab gareeyaan waa kuma labadooda ninka number 1 ka ah waxaan ogahay 2015 labadiinu inaad mar isla qaadeen hees raab oo tartar ah oo aad si fiican iskula jiibinayseen adiga iyo qays caawa hadaa tartantaan Cabdi Xaafido waa su'aal ma aragtay haboon la isweydiiyo horta saaxiibkay ilka casaqays inta ka salaamaya boqortooy salaam sharafa hawadu maraya horta ilka casow ali ilka cas ali likii yiraahdo Cabdi Xaafid ali likii yiraahdo ilka casow waa nin raabra wuxuu ku jira waliba Soomaalida top aniga digriyo ahaan waxa oran lahaa waliba ari marka isla joogno waliba rag saaxiibo oo isla soo koray oo reer Nairobi waa isla heen nimba ninka kale farta ku fiiqaari asaga ama telefoon oo ku wada hadalno ama toos labadeedo markaas hor fadhina ku yiraahdo Cabdi Xaafido adaa best rapper marka inta badan waxa waaye raab waxa jira freestyle wada sameeyay ilka case waliba xagga codka heavy ama codka weyn iyo waa meelo badan ama arta iskaga kala jirto inkastoo aan kala flownahay ilka likala yiraahdo Cabdi Xaafid waxa kale raayo inaan fursada kaga faa'iideysto Soomaalidu raab ilka casi digriyo kale uma haystaan runtii waxa fiican ila libata la siiro oo wax fiican ila sharfaro wax fiican ila gacmaha la soo qabto oo wax fiican ila isdheergeliyo oo wax fiican dhalinyaro Soomaaliyeed oo fara badan oo waxa jira maanta raab gareeray oo raab oo inaba caadi ahayn Muqdisho hadda dhalinyaro fara badan joogto hadda hal iyo laba ah ka soo qaato waliba anoo magac dhabayo inta aan soo qaadanin hayga xumaanina inta hadda xasuusana soo sheegaya likli yiraahdo lil balil waa good rapper lil balil waa rapper baartay Soomaalida wuxuu ku jira dhalinyaro rapperada rag ugu fiican waliba lil balil waxa taariikh fiican la dhaxbartay waxa jirta fankiisa markii uu horeeyay qofkii uu horeeyay uu imaaday ama fank kale tiriya raab kale tiriya ali digriyo waxa sidoo kale jiro lil yiraahdo Sharma Boy oo maanta Muqdisho jooga oo rapper waxa jiro oo kale likala yiraahdo kin arash waxa jiro CK waxa jiro dhalinyaro fara badan oo raab gareynaysa jirto marka kulligooda waxa leeyahay keep going guys waa badiyay inta kale wala badiyay Soomaalida raab gareysa sharaf waa waa gartay hadaan soo qaadano dhowr kamid ah heesaha aad dhawaan qaaday iyo kuwa mar hore qaadayba hadaan dul marno adoo soo koobay si aan su'aalo badan ku weydiino waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo heesta dooq iga waran ayadu xagee ka timid heesta dooq waxa qaaday 2016 ayaa jeclahay anoo hole joogo marka qurbaha soo galay heesta dooq hadiyad ayaa lagu siiyay nina saaxiibano leeyahay Farax oo reedal maag ah oo la xabiista qatar ah Farax Hadile saaxiibkii qaali waa salaamaya ayaa hadiyad igu siiyay waliba
inta badan markuu Soomaalidu waxay aaminsan yihiin qofku markuu raabar yahay ma heesi karo hadduu heesaa yahay ma raab garan karo laakiin labada kaalib waa ila isku qaadan kartid waa ila bidix midig way ka dhili kartid heesaha caadiga iyo raabka oo labada gees buu ku turtaa linkreer Cabdixaafidow heestaas hadiyada lagu siiyo waxay ahayd Holland anoo joogo muusigada waxa iska leh Qaasim Karaama waxay ku jirtaa heesaha lagu jecel yahay aan qaado maxaa laga maqashay dooqa cajiibe dooqa cajiibe adbaan kugu diraa honoy ku dareema adbaan kugu diraa honoy ku dareema ayayaya Allah ku daryeela heesta salka dhulka dhig yay maxay salka ku haysaa ayaad la hadlaysaayo salka dhulka dhigi waayay salka dhulka dhig waa hees dhalinyarada uu talagalay gabdhaha iyo wiilasha inay ku dhaansa gareeyaan ama ku ciyaaraan marka waa hees da'yarta macnaheedu jiilkeenan maarta ama jiilka iga sii dambeeya iraahda macnaheedu waa hees xilligeeda salka dhulka macnaheedu waa hees raab oo xilligeeda ku habboon waxaa jirtay sidoo kale 2018 haddii aan khaldanayn hees kale oo idinkoo gruuba aad ku wada ciyaarayseen aad dadkii wax ka qaadaya ka mid ahayd haddaada number 1 baahayn haddaan khaldanayn oo la yidhaahdo dhulkii hooyo heestaas dabcan hees wadani inay tahay baan ka dhadhaminaya Cabdixaafid oo heesta dhulkeena waa barwaaqa waxaa ku qaaday waxay ka mid tahay heesaha markaa hadda holo joogay oo soo saaray heesta dhulkeena waa barwaaqa waa hees ku saabsan geyiga Soomaaliyeed geeska gees heesta waxay la qaaday Saciid Kabaala erayada markaa fiiris heesta waxay taabanaysaa min raas caseer min raas kabooni macnaheedu hilow ilaa dalkii u xiisay bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada u sheegaya laba qayb raab ku jiro oo macnaheedu waxa raabka ka mid ah ilaan leeyahay xeebaha Afrika ugu dheer dhul maartay udgoonkiisu macaan yahay barwaaqadu ku badan tahay maartay wax walba dabiici Ilaahay nagu manaystay dhulkeena waa barwaaqa dabaashaad waxaan u aadlay soo wada baxal leenahay oo macnaheedu kaalay oo dhulka hooyo aadlay oo xamar caddi ka degre oo booraba tagre oo hargeysa tagre oo kismaayo tagre oo balaxaaw tagre oo ilaa gobolada dhaxsaas u soo dabaashaad leh waa gartay waxa kaloo jirtay hees laftigeeda la yiraahdo Rufyaan yaad oo la doonayo Cabdixaafidow heesta Rufyaan waa hees run ahaantii qof walba oo Soomaaliyeed sahmeen ku leh ariga digriyo sahmeen u leh ereyada ku jira markaa fiirisid waa ereyo ku habboon qofka Rufyaanka ee nabiibiyaha in lagu karbaasho oo shaydaanka loo naaro dadka dirdiraalaha adduunka uu nabcahay laba qof oo isku jira adduunka leeba tuso dadka ma aragtay heesta kooraskeeda waxa weeye ku sheekeeyay sheeko xuma ka sheekeeyay shar badana macnaheedu uu kula sheekaysanay uu ka sheekeeyay fad lama aamini karo marka waxa lama aamini karo shabacaan baruuxo kalba shaati leh shilinkii heestana u shaxaataga sharurku dartiisu war u sharaxa ceebta shacadana kama shiixay xitaa Rufyaanada qaar waxa jira bogtay Rufyaanada xitaa hadaa ku qaato bogto dhil ku qaato oo inuu maalinkaas ka qadiyay war hebelo saasi dhacdo inuu baarta leeyahay oo leeyahay rigeeda dhiigiga ta sharafa leedahay hadii baato tara qadada marka heesta lafteeda ku dhex karbaashay oo waxa leeyahay shabacay baruux oo qalba shaati leh hadiyad dadku siyaabo kala duwan bay u tafsiireen waxaana qaarkood dadku ay leeyihiin dad baad oo dan lahayd heestan maxaa ka jira dad si gooni ah oo dan lahaa ma jirto Cabdixaafidow horta alxamdulillah asxaabteeda maartay wax Rufyaan ku baarkay waa iska dhacday horta shalta sano marmar horta waxa saarnay shalta sano digriyo hal Rufyaan laga dhaxway aageeda waa gartay xilliga ayada horta heesta soo saaray asxaabteeda mid ka mid ah horta waa jirtay inuu ahaa warrow ilaahay cirkaas ka soo riday كرباش كرجيس وكيجي جري على لو بقى دبيرين لكن فرنيت magaciisa marabno waxaan jecelahay aan ka dhax galay dawadayaasha loo wadaagay
annagu ma jeclin dadka ceebtooda inaan ku mashquulno dad badan oo youtube-ka iyo facebook-ga jooga waxaa jira hebel baa la ceebeeyey hebel baa la fadeexeeyey adeer annagaaba teeni qaadila qof kale inaan ku mashquulno marka ma rabno dadka ceebtooda waa la asturaa gobbaa tahay horey u soco sharaf iyo karaama baa leedahay walaalkii cabdixaafid marka laftigiisana message-giisu ka gaaray marka heesta marka biraha ka sheekeynaya heesta ruufyaan waxaa ka mid ah dadka isjecel dad kala dilaa jira laftigooda oo jabal dhex dhiga oo macnaheedu heesta erayadeeda waa sha'ley oo macnaheedu waa shaqlaya meel walba ruufyaanka macnaheedu waa ku shidaya meel walba luuq walba kaga daba tegay oo waxay war jacaylka ma baxsan oo xitaa shirkadii ka ma baxsan oo ruufyaanka shirkadaha xitaa ku dhex jira macnaheedu dadka ganacsatada xitaa uu soo dhex galaa asxaab isjecel lama tuso reer dhisan lama tuso عبد الحافظ ها يلو واحد عم تقرا لا أريجا لكن إلهي هو هشاجر وأنت كده بعليه وحليه حتى الرفيان شاكر رجعت معها ها وليه وحليه الرفيان واحد كده عرب ضل مال الرفيان سبوه عبد الحافظ والله بالله أو طلعه وكله قالوا محمر يا نار ساعة ولا ساعة دقيقة بكس وحوجي وحوشيء هرت قفر وشيء بدرت عبد الحافظ أنا سأبي سير دكريو قف كبركو دارت إلهي ضد مسلم هاي دارت يقص أرض مان ما العلة اللي قبل دارت قف كأريد دكريو بس sometimes أريد بركة وحشيء يا أبو قف بركة وحوش كيره وإله كل دار دكريو بركة وحيرة والله لا على الرول دار اسمه الرعد واحد كل شيء الرول لكن بركة وحي بيهين أنت بدل ضد كوي كل دارت ويخو شغلان waxaa jirta oo kale hees la yiraahdo cudoon aad heestaasu maxay tahay waxaan maqaale igu ah heesaha kale kaaga duwan tahay horta hees walba oo jacayl ah cabdixaafid oo heesaha kale iga duwan yihiin hees walba oo jacayl ah because anaa baartay awlaad raaxa oo awlaad jacayl ah jacayl la ku dhashay alxamdulillah heesta cudoon waxa waaye inta badan gabdhaha iyo wiilashu waa jecel yihiin waa shacayl lamaano ku bilaabay wiilkii dooqiisa ka hadlaya kooraska heestana qofku wuxuu ku dhex duceysanayaa ilaahay inay baartay carruur badanna ii dhashaa uu leeyahay macnaheedu riideedu u dambaysa in noqoto adoo carruur badan ii haya heesta cudoon halka aan ka soo dhex galo maadaama lamaano iyo jacayl iyo hees cudoon ay ku salka ku hayso waxaad iminka noloshooda wadaagtaan marwada weyn ee sharafta iyo karaamada leh najma jacaylkiinu xaguu ka soo bilowday adiga iyada maxaad nooga sheegi kartaa marwada my queen boqortooyo dal gubeed intaa ka salaamayaa sharaf ay tahay inaan maaragtay barnaamijka qayb ka noqotay inaan maaragtay lagu soo qaato jacaylkeena jacayl muddo soo socdo ahaa cabdixaafid markaa qurbaha soo galay reehol lahaa inta badan hadda waqti xaadirkan hadda kula hadlay waxaa jooga Sweden dadka badan inta badan dadka waxay dhaaliyo digri horta adiga baholo baa degan tahay bas Sweden aad degan tahay marka nolosheeda inta badan Sweden u badan hadda qurbaha joogo wax kalifayna waxa waaye qof igu dabeecada ah ama ma aragtay isleeyahay waa marwadeyda marwada u qalato marka jacaylka bilaabay kubara qasaarin bay ahayd waayo qurux badan oo ku bilaabnay waxa ku isku baranay magaalada caasimadda dalka Sweden Stockholm jacayl qurux badan aroos qurux badan oo ku dhiganay marka dambe oo ilaahay goolkeena loo dhaliyay ila aroos ka dhiganay oo baartay reer ku faataxaystay caawadan aan kula hadlay ama maantadan aan kula hadlay ee xilligan aan kaala soo warramay dalka Sweden aan ku sugnay gurigeyga marwada qaaliga ee salaan sharaf ayaan hawada warsiinaya wasiirka arrimaha gudaha waa salaamayna najmo sharaf iyo karaama ku hayna Allah ku cizeeyo waxa weeye wax lagu farxo weeye waxa igu maqaalaa jacaylku soo marakii ugu darnaa ka najmo inuu yahay dad ku dhadhow baan waraystay oo ii warramay waxa la yiri odaygu waxa weeye kan waa kii uu maaragtay qabriga la gali lahaa markuu ilaahay cimrigiisa barakeeyo aad ilaahay inta waqtiga hartay maaragtay loo barakeeyo kuwa isku waaro oo maaragtay reerkooda lagu soo hortay Allah laga dhigo insha Allah inta kale oo maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed isqabanayso kale waxa la Allah isku barakeeyo reer qurux badan isku waara gacmooda jirooda
wagaag waxaa kaloo oo jira aan jeclaa inaan intaas ku daro waxaa kaloo oo qurux badan ah laba qof oo dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo noloshooda wadaagaya oo isqaba oo isku faraxsan qurbaha wada ogtihiin guurar fara badan baa fashilma anagu cidna ma xukunno waxay u fashilmeen ayaga og khayr baan ugu rajeynaa laakiin waa wax lagu farxo nin dhalinyaro ah oo fanaan ah oo haddana xaaskiisii iyo gurigiisii iyo wasiirkiisii arrimaha gudaha najmo ku faanaya waa wax lagu maaragtay lagu diirsado weeye waxaad xasuusisay saaxiibkay Dayaxdal Nuurshe iyo dimaashadii farxiyo oo sidaas si ka badan ayaan u rajeynayno labadii afartiinuba guuleystay inta kalaba insha Allah وحاجات waxaa jira maadaama hal mar aan ka dhaxgalay maadaama aad maartay soo magac qaaday reerka quruxda badan ee boqortooyada reer Dayax dibaashadii qaaliga farxiyo iyo walaalkii Dayaxdal Nuurshe sharaf iyo karaamo nolol qurux badan ku noolaada aad iyo aad ayuu u salaamaya runtii Cabdixaafid uu xiyay role model labadaas qof waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxay u yihiin role model especially fanaaniinta dadka Soomaaliyeed inta badan Cabdixaafid oo anoo daqiiqad yar ku darsanaya Soomaalida inta badan waxay aaminsan yihiin fanaaniinta inay yihiin dad nolosha ka dhacay dad qariban dad adduunka oo isdawirsiiyay wada daraagisi fanaaniintu ma aha sida moodaysiin runtii bila aadiku waa shantaas farood sida dadka caadiga loogu dhaxelo qof daraagaysta ah ama qof ooliye oo iska xalaal ayaa fanaaniinta loogu dhaxelaa fanaaniin badan oo maarta reerahooda dhex degan oo ku faraxsan jiray sida ariga iyo Dayaxba iyo fanaaniin kale oo fara badan saas ula socda fanaaniinta maarta bulshada Soomaaliyeed runtii dad waxaa la inta badan dacaayada la dhashay oo dacaayada maartay dad aad u dacaayad badan oo aad u kaftan badan dhaxal waa kaga dhex jira alxamdulillah waana ku maartay aad iyo aad u faraxsan ilaahay inuu Soomaaliga dhaliyay laakiin fanaaniintii ku faana oo abaanintii ku faana oo qof walba oo Soomaaliya waxtar leh shacabka Soomaaliyeed oo ku faana hal noqon bulsho isku wada dhigo ku socod asaas weeye iyo khayr laabsi Dayax iyo farxiyaba waxaan u marinahay hawada salaan iyo sharaf iyo karaamo dad aan aad isugu xiranahay oo saaxiibanahay weeye si kastoo u kala fognahay haddana mar walba telefoon ku wada hadalno sheekeysano waa family ku mudan qurux badan sharaf badan karaamaysan dhalinyaro fara badan iyo dad waaweynba maanta misaal waa inay fariya faraanti yihiin mar la wareysanayay ama hadlayay wuxuu hadaladiisa waxa kamid ahaa yani nolosheeda oo dhan gurigeyga iyo qoyskeyga ku maaragtay ku salaysan tahay waana wax maaragtay lagu faanay ma sha Allah barakeeyo haddaan halkaa uga baxno qoyska barakeysan ee goobta Dayax iyo farxiyo waxaa jira hees dhawaan aad qaaday dabcan waaga cusub aad ka baxday dad fara badan waxay rabaan inay ogaadaan heestan duf ku bax aad qaaday inaad ayaga oo la dal lahayd maxaa ka jira arinta waa maasantay walaalkay Cabdixaafid horta inta badan bulshada way isweydiiyeen dad badan xitaa ariga isoo weydiiyey oo yiri dikriyo oo maasantay karbaashka kooxdii hore mucaaradka noqotay xaq jirka aad ku sameysay kan iyo dis kan iyo kan horta Cabdixaafid waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago suugaanta inteeda badan way isku toosaan hawada markay isla soo galaan wax isku aad oo isku sawir eegay noqdaan ariga haan dikriyo kooxa hore u tirsan jiray ama kooxdeeda ma aaminsanay inaa maaragtay maanta u soo heesi karo ama akarbaashi karo waayo cusub hadda si aaminsanay laba fikra kala haysana hadda kooxda waayo cusub kama midihii laakiin taariikhdeedii iyo fankeyga hore oo dhan kooxda marna magacayga ma harimaayo oo ciidan maanta iga xigtana ma laha waa magacaygii laakiin hadda team kale wali ku shaqeeyo hadda kuma shaqeeyo aniga heesta ayada duf ku bax ugu talagalin kooxda waayo cusub ugu talagalin hees aan u jawaabi karana oo ma aragtay aan u jawaabi karana ma because barwada qaaliga barra walaashii Falis Cabdi ayaa heesta ma aragtay inta badan Soomaalida dhaliilada ku luqeynayso labari laxdin marka igama mudno ila marka ma noqon karin nin dumaashiis ma aragtay adduunka iyo ama bulshada ku dhex karbaasha ama u jawaabo absolutely wax soo qalad dhaqan Soomaaliyeed ma marka absolutely marka waa qalad heesta duf ku bax meel walba aadi kartaa waa hees noocyo badan waxay noqon kartaa dadkan social media-ha Cabdixaafid oo khaaqdas ku haya hadii qol isku soo xiraan baatoodo isku arka dadka bulshada u aqliga badan
ama wax ugu fiiri cabdixaafid adduunka hadda waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah dadka aqliga u saaxiibka ahaa ee ilaahay maskaxdiga quality-ga siiyey way aamusan yihiin way xishoorayaan maanta qofba qof intuu ka doqosanaa ka maskax yaraa ka leeceebsanaa ka qabyaalad badnaa ka docobsanaa baa bulshadii wax u sheegaya maanta dunida maanta qof fiiri sometimes aniga cabdixaafido fiiri heestan waa kirbaash meelo badan ay maraysaa dadkan duloobay bay maraysaa fahmaysaa waxaa soo dhan kirbaashaya okay sometimes aniga hadda Facebook dhalinyarada social media aad u isticmaalo ka mid ahay waxyaalo fara badan oo sometimes waxaa jirta cabdixaafid oo barnaamijka kaga faa'iidaysta balta oo aan ka gubto marka arka nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed wuxuu jira 3 sano rag isku fiiri weligiis dawlad ba arkin weligiis Soomaali calankeeda meel ku babaraysa booliis ba arka traffic ba arka kalba arka hay'ado iyo dawladii wax ka socda weligiis buu arkin meel system dawlad meel ku arka weligiis balahan wax barasho heer sare ma haysto wuxuu war alhiiska alle waa qaxooti wadamada islaamiyeed ku nool yahay markaas buu haduu TV soo fariisto wuxuu ka sheekeeyaa taariikho iyo dawladnimo iyo wixii asoo bulshada kala dilay ilmaariyaal akhir xishoon dhalinyarada Soomaaliyeed sida ogahay ma wada sunno waa sida hore loo sheegay shataas farood 75 dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo social media saaxiibo ku nahay oo waxa jira gees dalka degan oo ilaahay dadkiisa saaxiibo u nahay oo Soomaalinimada oo ku faano oo dariskeena oo ku faano oo dadka isla soo korna oo ku faano oo kuwa asxaabta aan oo ku faano kuwaas bulshada dadka ugu qiimo badan ninka kan ee ma aragtay TV-da haduu soo fariista ama hadii qol isku soo xiray qaaqlaas ku hay ilmaariyaalo dadka yaa la isku dirin qabyaalada hala joojiye heesta ayada duf ku baxra dadkaasi ku socotaa barna dubaashideedu heesas jawaab uma ahan kooxda way cusub jawaab uma ahan marka waxa leedahay si aanu salka uga jarno dadkii YouTube leedaha iyo dadkii Facebook joogay lahaa heestan duf ku bax waxa loogu talagalay in lagu karbaasho kooxdaas waayaha cusub lagu karbaasho marka waxa leedahay kooxda haday aan lahayd marwada haday aan lahaa saaxiibka Shiine iyo kooxda inteeda kale bari bay ka yihiin waxay ku socotaa dadka umada isku daray oo dhibaatada aad iyo aad cabdixaafidow aniga ahaan digriyo hadda marka kooxda waaya cusub fiiriyo horta heesta si uu cadeeyay heesta kooxda waa jawaab ma aha heesta kooxda kuma socoto waxa kale Raila ku darsado heesta hadda kooxda waaya cusub soo qaaday inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ka galgasheen ama ay ka kaceen dadka ka soo horjooda hadda ka mid ah dadka ka fikir duwar kooxda ka mid oo heestas ka soo horjooda ka waxa kaga du maxay heesta ra'yigooda haday cabireen maxaad ra'yigooda fikirkooda uma diiday laakiin cabdixaafid waxa jira adduunka mucaarid iyo muxaafid jira muxaafidka hadii la dhaho maxaa ra'yiga mucaaradka uu mucaaraday waa su'aal qaldan waay hadii mucaaradka la weydiiyo maxaa muxaafidka uu mucaaraday waa qaldalta adduunka opposite isku yahay fikirkooda fikir ka duwan wata marka ariga ahaan kooxda waaya cusub ee koox wadariid lagu yaqaanay ee muddo dheer soo shaqeysay cabdixaafid oo calanka Soomaaliyeed anagoo rag dhalinyaro ah oo sometimes ka qada cuni jiray doodkaas ku waday oo saas u soo babi jiray ila ma artay maanta la yiraahdo labar iyo xadin iyo inta ka dhacday ama madaxweyne Soomaaliya loo gafaa ama shakhsiyaad la weeraro ama dawladnimadii la kubcinay ma artay laga hormariyo ahaan digriyo ka soo horjeeda marka hadii ay bacri hadda inta badan bulshada dadka qaar ba waxay dhigi doonaan cabdixaafidow digriyo horta bulshada waa dad maartay intooda badan waxa ku dhex jira dad maartay sulta hargaha ka daran cabdixaafidow aflagaadariga ma ahan waxa saas u leeyahay waxay tahay waxbay isku shaabadayaan waxa kamid ah hadda digriyo fanka waxa soo galay 2005 waa kooxda waaya cusub waxa la aasay 2004 kooxda waaya cusub la aasaasay ani 5 6 intuu dhaxaysan fanka ku soo biiray kooxda waaya cusub maalinka ku soo biiray cala Soomaaliyeed watay weligeena dawladda Soomaaliyeed weligii ma la yahay mucaarad weligii dawladda waa taageersanaa because waxa ku mucaarada ma hayo nin dhalinyaro Soomaaliyeed ah qurbaha ku noolahay gabar Soomaaliyeed ba horteed lagu jiiday sharci la weydiinaya wiil Soomaaliyeed halkaas lagu jiidaya wuxuu ma aragtay xitaa sometimes waxa fiican ilaa ma aragtay qofku waxa fiican inuu ficil leeyahay uu gubto marka qurbaha joogto hada fiiri dhalinyaro nagu faca waa waddankoodii wardiisanay hada fiiri waxa arkaysaa nin dhalinyaro ah oo ma aragtay waddankiisa ama andakaafar ku shaqeeya ama dharcad ku shaqeeya ama siyaasi ha noqdo ama wasiir ha noqdo raggeeni ba qurbo dadka wadamadooda hadaa u maana waxa u qaxooti cabdixaafido annaga qaxooti hadana isku dhigdhigan فهمت marka waxyaalo laga qajiilo oo laga falxo waxyaalahaas marka arko kale waa ka gubtaa
dowladnimada weligay soo taageeri jiray hadda hadalkay ku socdo dowladda hadda jirtay waa taageersanahay kuwa soo socdana waa taageeri doonaa weligay maalinka mucaarad noqon doona la kala yiraahdo Cabdixaafid oo hadalka maanta meelaha lagu qorto waa maalinkii Soomaalnimo dowlad buux markay dhalato mucaaradka markaa noqonaya maaha mucaarad wax dubiyo aan dhihi karo war laamigaas hala dhiso war magaalo hebel biyo ma lahan war xaafid hebel iskuul ma lahan war xagga isbitaal ma lahan daasda mucaaradka waa inuu dalka wax ka dhisaa maaha mucaarad wax kala dilay inta adeerkii iyo inta kale yahay iyo kala ka saaliyeelay Soomaaliya halka وقت مركا هردي أرنتا واقع عصب على سوق بجبينه ما واحد وما حي واحد أجر يدول تهي هست ما هنا هذا بحذي وياه كوحدة وياه عصب هست كهرا كبحي مركا كبحي لو هات